halkaas ay Soomaaliland kaga soo baxdaa sawirka marka laga hadlayo Itoobiya iyo Masar. Dekadda Berbera waxay ku taallaa goob juqraafi ahaan istiraatiiji ah, waxayna bixisaa marin ganacsi oo madax bannaan oo cadaadis toosa sababa. Berbera ma aha dekad keliya balse waa ikhtiyaar siyaasadeed oo kordhiya fursadaha dalalka deriska gaar ahaan Itoobiya. dhinaca kale Masar waxay si dhow ula xiriirtaa amniga Niilka iyo amniga badda cas. Kanaalka Suez waa il dhaqaale oo muhiim ah, waxaana khatar ku ah qallaase kasta oo ka dhaca marinada badda. waana halka ay iska soo galayaan dabcan Masar, Itoobiya iyo Somaliland oo dhammaantood baahiyo isku mid leh, dano kala duwan leh, duruufuhuna laftirkooda ay u kala duwan yihiin mararka qaarkood. sidaa darteed loolanka ku saabsan Niilku wuxuu si dabiici ugu fidaya badda cas, maadaama dekedaha iyo marinada badeed ay noqdeen qaybo ka mid ah isla xisaabtanka ama xisaabta awoodda. arrintani waxay sare u qaaday qiimaha Somaliland. tartanka quwadahu wuxuu mudnaan siinayaa meel degan la saadaalin karo amni leh. haddii Somaliland si ilaaliso xasiloonideeda, haddaba waxay yeelanaysaa miisaan istiraatiiji ah oo ka weyn inta ay maanta u muuqato ama muhiimadda ay maanta leedahay. si kastaba ha ahaatee, miisaanka si toosa looma helo, si fududna looma helo. waa in loo dadaalaa, qorshe cadna laga dhigtaa. Somaliland haddii ay rabto inay fursadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Masar iyo baahida Itoobiya iyo culayska ay saarayso Masarna, waa inay ka faa'iidaysto barinka istiraatiijiga ay ku taalo dekadda Berbera oo iminkaba halka ay dunidoo dhammi diiraddeeda ku hayso fursado badan oo horena u helay kuwa dambana heli doona. laakiin waa shaqo u baahan in mar walba lasii kordhiyo si Somaliland ay uga faa'iidaysto xulafaysiga iyo loolanka adag ee ka jira halka ay ku taalo Berbera ee marinka dhinacna badda cas dhinacna gacanka xadmeedka iyadoo dabcan saameynaysa cidda qarannimadeeda ka soo horjeeda oo Masar ah, oo laakiin laga yaabo haddii Somaliland si istiraatiiji ay arrimaheeda u hirgeliso in hadhow tole calanka ku dhigto. Somaliland haddaba ma saameyn karo khilaafka Niilku si toosa, mana xakamayn karto go'aanada Masar iyo Itoobiya, laakiin waxay gacanta ku haysaa hanti dhif ah, waana xeeb ammaana iyo dekad la isku hadlayn karo. haddii arrintaas si qorshaysan loo adeegsado, Somaliland waxay u bedeli kartaa juqraafiyadeeda dheeraad siyaasadeed iyo dhaqaale, halkay ka heli lahayd fursad isku taalla oo si buuxda loo isticmaalo. halkaas oo ah inay hesho fursad isku taalla oo si buuxda aan weli loo isticmaalin. arrintaas waa arrin muhiim ah. ku baraarugsanaanta qolo walbana dhinaceeda u baraarugsantahay waxay fursad siinaysaa oo ay kaga horeynaysaa cidda kale ee tartanka kula jirta. daawadayaal, falanqaynta kooban ku sameynay loolanka webiga Niilka Itoobiya iyo Masar iyo Somaliland dhinac kale kaga jirta intaas ku dhamaystiran tahay. intaynu falanqayn kuwan lamida ku kulmi doono waxaan isku ognahay sidaa iyo nabadgelyo.